muxuu yahay dilaaga qarsoon ee loo yaqaano silent killer ama monster ee ku habsaday Twin Cities ama Minnesota guud ahaanba sida ognahayba carbon waxa loo yaqaano ama qiiqa madow ee ka dhasho gubnoodka ama wax markii la gubahayo ama cunto la karinayo ee waxyaabaha noocaas ah ayaa halis cusub oo hor leh oo waliba aad iyo aad soo badanayo noqday khaasatan Minnesota gobolka iyo waliba gaar ahaan Twin Cities Minneapolis marka arintan ayaa macnaha ii sheegay soo cusboonaatay kadib markii ii sheegay la ogaaday in nin uu kooma galay xaaskiisa intay guriga uga tagtay ayada oo macnaha ay furantahay waxa loo yaqaan furnace ama carbon production ka ii sheegay qiiq iyo waxyaabo noocaas ah horta qolooyinkan 1996 maamo ayaa waxay sheegaysaa cadaan ah oo gobolka Minnesota ku nool in ilmo ay leedahay oo laba ah yar ee uga dhinteen qiiqa noocaas ah ama carbonkaas ay dishay waana dilaa qarsoon haddii aan Soomaalinahay marka maxaan arinta kala soconaa ii sheegay arintan carbonka ah ee loo dhimanayo ee dilaaga qarsoon ah waxaan maqlaysaa qof Soomaaliyeed oo kule neef ba igu dhacday si uu joogay Wadne-Istaaga baa lagu leeyahay Mareykanka Minneapolis iyo Minnesota oo dhan guud ahaan iyo waliba meelo badan oo Soomaalida ay ku nooshahay Yurub ii sheegay Afrika meelaha qaar waxaasoo dhan danna kama galno macnaha Wadne-Istaaga baa wax baaritaan dheeraad ah sameeyay laakiin dilaaga qarsoon ee la ogaaday ayaa noqotay carbonkaas carbon monoxide kulli waa taqaanaan waa qiiqa madow ee ka dhasho waxyaabaha markii la gubo ama si qarsoon xataa urkiisa adiga oo dareemaynin macnaha qiiqaas iyo waxaas ku hoos dusin karo furnace iyo afaarahaas markii la shido ama alaabaha wax lagu kariyo ama heatka naftirkiisa wuxuu leeyahay radiation ama koronto ku kari ama gas ku kari sidoo kale gaaska aad ayuu u halis badan yahay oo Soomaalida uu ku qarxa laakiin ii sheegay arintan ayaa aad u soo cusboonaatay oo waliba dawladda federaalka ee Mareykanka ayaa go'aan ku gaartay in guri kasto ka hortag waxyaabaha loo yaqaano ay gelin doonto caagado yar oo macnaha alaam ah meeshii carbon monoxide uu ka jiro macnaha dhawaaqayso si emergency loogu waco oo markaas macnaha looga gaaro dadka looga badbaadiyo aysan u sii soconin arintan bal buuqaalkan ila daawo Carbon monoxide. The wife called 911 last night saying her husband was having a heart attack and later a seizure. The dispatcher urged the pair to leave their home as soon as possible after learning they had just turned on their furnace. State fire officials are kicking off a statewide push to save lives from the silent killer. Today, 8 Minnesota fire departments are installing carbon monoxide alarms in homes at no cost. Barrett Leone has more from the newsroom. Because you can't see it, taste it, or smell it, carbon monoxide can build up to toxic and sometimes deadly levels. That's why state fire officials say that prevention and education is key, especially as we head into the colder months. The state fire marshal is teaming up with the Rochester Fire Department to talk about CO poisoning and prevention across the state. Together, they're handing out 2,500 alarms to cities like Austin, Bemidji, and Red Wing. Organizers say it's focusing on communities at higher risk for CO poisoning. During the announcement this morning, we heard from a mother whose 2 sons died from carbon monoxide poisoning in 1996. The loss inspired federal legislation in their names. She says having an alarm is the difference between life and death. We are out here advocating for alarms in every home because that is really the only way that you will know that you have this monster that is a killer in your home. A total of 8 cities will get free carbon monoxide alarms. And this program is possible thanks to federal grants, including a Carbon Monoxide Poisoning Prevention Act named after Cheryl's sons, Nicholas and Zachary Burt. Reporting in the newsroom, Barrett Leone, WCCO News. islaantan ayaa sheegtay sidoo kale in ninkeeda uu Wadne-Istaaga kooma uu galay sidaan ognahay carbonka waxa loo yaqaano macnaha wax urahaya ma aha wax macnaha indhaha qaban karana ma aha oo la arki karo wax la taaban karana ma aha marka waa halis waxay markii dawladda ee go'aan ku gaartay Mareykanka federaalka Mareykanka ee go'aan ku gaartay in ay bixiso ii sheegay carbon monoxide alarm waxa loo yaqaano oo ah aalad yar ama gadget yar oo telefoonka la eg hadii uu ka weyneyn
oo la gelinayo guri kasto si free ah waliba lagu siinayo si looga hortago dhimashadan faraha ka baxday ee sababayso carbonka ama faanisiyada accidentally lagu furo sida ognahay guri kasto oo Soomaaliyeed marka Soomaalida aan u imaano arintan maxaan kala soconaa ma ka warqabnaa ii sheegay newsyada noocan ah ma ku baraarugnaa waa maya waxyaabahan oo kale waa halis qarsoon laakiin Soomaalida intooda badan kuma baraarugsana waxbana kala ma socdaan waxa laga yaabaa in la iska dhahayo qof baa heart attack u dhintay qof baa wadnaha istaagay waxyaabaha noocan ah ayaana kamid ah gaaska sidoo kale iyo meelo badan oo Soomaalida ay joogto Afrika haday noqoto xitaa halisyo fara badan ay leeyihiin gaaska naftirkiisa wuu qarxaa korontada sidoo kale waxay leedahay ii sheegay radio activation markii aad wax ku karinayso hadii aad horay ka daminayso marka dhameyso aad ka damin weydo halisteeda ay leedahay iyada laftirkeeda ilmaha ayaa taaban karo waxyaabo noocaas ah carbon kan ayaa marka waxaas oo dhan kuwan waa la damin karaa ama waa laga dabatay karaa ayaa ka halis badan oo aad uga halis badan maadaama wixii uu yahay waxaan ureynin la arkeenin lana taaban karin saddexdaba uu isku darsaday waxa kaliya oo lagu joojin karana ay tahay ishay carbon monoxide ishay detector ama alarmkaas loo yaqaano in guri kasto lagu install gareeyo si micnaha marka ayada ah uu dhawaaqo markii carbon transmission uu jiro ama wax soo fatahay oo carbon ah oo micnaha dadka halis ku ah oo dadka dilahayo markii micnaha ii sheegay saas uu ii sheegay alert amal uu qayliyo sida caadiga ahna marka dab uu kaco oo kale fire extinguishers ama ii sheegay alamyo loogu xiro meeshii markuu dab ka kaco si micnaha loo xaqiijiyo inuu meeshaas dab ka kacay waxyaabo noocaas sidaas la mid ah halista ii sheegay waxyaabahan electronic ah aad ay u sii badanaysaa laakiin annaga marka hadii aan Soomaali nahay waxyaabo badan oo waxa jirta aan careless ka nahay arintan hadda in waxa laga yaabaa aanan waxba kala socodin aan waxba ka ogeyn dawladda Mareykanka waliba ilaa iyo 8 magaalo oo Minnesota kamid ah ayaa loo qaybinayaa aaladahaas ii sheegay lagu ogaanayo in carbon transmission uu jiro ama alert si ay dadku u siiso oo halistaad ay uga digtoonaadaan arintan maxaa kala socotaa hadii aan Minnesota Twin Cities ay joogto sidoo kale guud ahaan Minnesota ay joogto arintan maxaa kala socotaa hadda ka hor may ku soo food saartay oo dhibaatadan mala kulantay ama ilma adiga aad dhashay arintan may ku dhacday ii sheegay transmission kaas micnaha suffocation intay ka qaadeen waxaayo la garan waayay isbitaalka loola cararay kadibna saas may ku nafbixeen hadii ay fariintaadu haa tahay ii sheegay jawaabtaadu haa tahay nala wadaag sidoo kale dadka ugu horeeyo oo gadgetyadaas ama aaladahaas ii sheegay lagu ogaanayo in gurigaas carbon transmission uu ka jiro oo aladka ah dadka siinayo in aad noqoto dadka ugu horeeyo oo qaato ii sheegay ama dawladda ay bixinayso maalmahan soo aadan ama saacadahan ay bixinayso dawladda Mareykanka waliba heer federaal ah maadaama arintan la ogaaday in serious issue ay tahay sida arkayseena maamadaas ay sheegayso weyn ay leedahay is a killing monster oo qarsoon oo micnaha ay sheegay aan lagu baraarugsanayn aniga laftirkeyga 1996kii ay caruur laba ah oo aan dhalay sidaas iiga dhimatay carbonkaas iiga dhimatay intay jiideen ama ay inhale gareeyeen carbonkan marka sidee bay jirka bini'aadamka ku galaa wuxuu ku galaa ii sheegay inhalation carbon haduu imaado wuxuu overtaking ku sameeyaa meeshii ama aagaas oo dhan uu overtaking ku sameeyaa supplication of oxygen-ka macnaha oxygen supply-ga ayuu yareynayaa marka waxay sababaysaa in asaga maadaama uu ka xoog badan yahay oxygen-ki aad inhale gareyso neefta ay kugu dhagto suffocation uu kugu dhaco kadibna daqiiqada kadib macnaha wadnaha uu ku istaago ama aad geeriyato oo suffocation aad u dhimato ay sababaysaa bal hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro arimahan dal hore kugu dhaceen ka digtoono baa ku leenahay hadii hore kugu dhaceen qaybta commenting noogu soo qor sidoo kale bulshada Soomaaliyeed waxa kula talin lahayd qaybta commenting noogu soo qor hadii uu muuqaalka ku soo gaaro la wadaag saaxiibada iyo deriska ama neighborhoodka Minnesota iyo magaalooyinkan la sheegay in loo qaybinayo oo halista badan ay ka jirto oo si share garee saaxiibka ama saaxiibta hadii muuqaalku soo gaaro like noo saar YouTube-ka ku cusub tahay subscribe noo saar wana maasantiin